السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قفكم مركا ودقال كولا جيرتان كيسا يا أسل كيسا يبا دي سعوديسا ومد سبحان الله وحادي اللوغان نحوي وانا با واحد dood ina dhex martay qof ku doodaya haduu awood u heli lahaa inuu joojin lahaa in wax lagu barto af Soomaaliga oo ku bedeli lahaa af Ingiriisiga iyo af Carabiga qofku wuxuu sii raaciyay dadkii af fiican kuma hadlayaan af Carabi fiican kuma hadlaan af Ingiriisi fiican ma hadlaan marka waxaan weydiiyay markii dambe ma af baa doonaysaa mise aqoon marka qofku yar fikir wuxuu yiri meede ما وحوين أدون كين لحر نو ضدكو ده أي أكو علي حكور ما أف بات ربطها مساء قون ضد ويصعطي سؤال بدل ما نسكع عليني حصل شيء مرة وين وقتي بدين كقاضو نحور كايا نصعده قفك دودي سو حي soo fadhiisatay dadku inay u baahan yihiin in afafka si af Ingiriisiga af Carab in si fiican loo baro oo laga haqabtiro marka waa inay aqoonta oo dhan afafka ku qaataan oo af Soomaaliga la joojiyo marka dama waxaan u sheegay wadan yar oo waxaan u sheegay 5 milyan oo tacabka ugu badan ku bixiya in afkiisa wax lagu barto oo afkiisa ilaaliyo waxaan ku yiri wadanka yar muxuu afkiisa yar u ilaaliyaa deedna waa mus waxaan ku yiri af Ingiriisiga aad u ololeynaysaa awood ba halka gaarsiisay waana af kula mid ah waan ku yiri marka ma af fadrata waan ku yiri ku guumeysto adigoo af leh afkaaga gabay waxba gelin waayay ayada hadana af kale u hanqal taagaysa cid kale leedahay markii dambe wuxuu baa ii soo baxday qofkiina ku qancay waxaan ku yiri eedu afka ma aha eedu waa inaga af Soomaali hadan maqasho baan ku waa baadi socdeena Soomaali ina tahay Soomaali baadi socdo koowaad ee lagu gartaa waa afka hadaad afka lumiso khadkaad ka baxda wax kala noqonaysa marka waxa la raxad doontaad sheegan kartaa marka laakiin baadi socdaada koowaad waa afka marka أنا أقف كلا يا مدرسة دتك لو حنرخي يقول نساس وكلا كدودية من أف Soomaaliga la joojiyo oo af Ingiriis waxa lagu barto caynka maalina inuu masaajid ku weysiisanaya waa Hargeysa ayaa waxa qolaygu aag weysiisanaysa waxay ka sheekaysanayeen waniga gabadha ilmihii waxay ka ilaalisay af Soomaali ku wada hadasho af Ingiriis mooyaane ya maalin kalena waxaan daawaday nin kale isaguna professor oo leh dadka jaamacadaha professorada sarsare wuxuu bay ku soo qorayaan marka warqad ama wax ka codsanayaan af Soomaali bay ku soo qorayaan adduunka af Ingiriisi buu ku xidhiidha haya maxaa ka wanaagsan adoo aqoonyahan af Soomaaliya inuu aqoonyahan kale oo Soomaali oo afkaaga wax kugu soo qoro maxaad u saluugaysaa mise adigu Soomaalinimadu baad iska daysay oo afkii de maadaama afkii laga dhigay af liita oo subxaanaka ya cadim dad liita ay ku hadlaan af la curyaamiyay aqoontii laga ilaaliyay afku waa qalab xambaara aqoonta xadaarada taariikhda waxaan oo dhan waxay ku jiraan waa afka marka afkaaga adduunku waxweeyaan aqoonta ugu sareysa waxa lagu gaaro markii baaritaanada la sameeyay waxweeyaan jaamacadaha adduunka ugu horeeya takhasusiyada waxa lagu sameeyaa yaani wadanku ka horeeyo wuxuu ilaaliyaa afka dadku afkiisa ku ciil baxaan afkay wax ku bartaan adduunka waxa la iska ilaaliyaa caruurtaada imika waxweeyaan wadankeeni ilmo yaro keeji taga waa xanaanada ayaa waxa lagu leeyahay af Soomaaliga laga ilaalinayo af Ingiriisi ba hoos looga soo bilaabay ilaa jaamacad waxa laala iyo wax baahi keenaysa ma jirto ilmaha markaad u soo adkaysa salka ee afkaaga ku soo carbisad wuxuu ugu soo dhigto halka sare markuu gaadho wuxuu doonaha doorto waa qof adag marka qofkaas oo yani afkiis dhisan yahay
afkiisa ku fikiraya afkiisa in aragtidiisu yani ku soo saaraya marka meelab halisa afkeena la maraya afkeenu waxa weeyaan wuxuu ka waa la garaacaya waa la shukulaya waa la fagaya waa la qodaya hadhowna wuu dhacaya waayo af aqoonta laga ilaaliyay afku hadduu aqoonta xabaari waayo afkeena maxaa waagi hore ilaaliyay waagi hore waxayna soo faragelinayeen ma jirin soo dhexgelayeen ma jirin dadku iska xoolo dhaqatayeen ama waxay beeraley ama dadka iska yani marka afkooda iyo suugaantooda iyo xadaaradooda iyo noloshoodu wax iyagu is ilaashano wax badanna sheekay isugu gudbiyaan bay wax taraxay ma jirin laakiin imika magaalooyin iyo aqoon la baranayo waxaan oo dhan afka way nugleynayaan haddaan afka aan la dhisin oo afka eray bixin loo samayn oo afka waxa weeyaan hay'ada ka shaqeeya aan jirin xarumo ka shaqeeya afka hadaan jirin dad ku hawlan Soomaali ilaahay baa u maqan iyaguna darigaas ay isdhigaan aad iyo aad baan salaamaya waxba niyad jabinaga ma aha laakiinse waxa weeyaan markasta oo aad u fiirsato sida loo nool yahay iyo dad badan u fikirayaan waxa weeyaan waa dad isdooxaya qof isdooxaya oo marka dambe qofku marka qaar yani aduu bal qof istooxay subxaanallaah marka soo koobo qof istooxaya ama isqalaya ka sheekay intee laga wad gacan tayn kartaa arkada ya aad baan salaamaya waxa weeyaan afkeena hala ilaaliyo waa baad socdeena koowaad waa Abshukur Maxamed Soo ku dhaafaya waqtiga hadin wanaagsanado. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.